سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka Bashiir Beej. qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona Cabdirashiid Janan oo heshiis la gaaray dowladda federaalka Soomaaliya. wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubbaland ayaa heshiis la gaaray dowladda Soomaaliya. qarax qasaare geystay ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan AMISOM oo marayay gobolka Shabeellada Dhexe. sidoo kale qodobada wararka ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona wafdi uu hogaaminayo taliye Fahad Yaasiin oo maanta ku wajahan magaalada Gado lana sheegay inuu halkaasi markaa gaaray saacadaha haatan markaa aan joogno. hadhanka kale haddii aan fiirino qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo codsi taageero degdeg ah u diray jaamacadda Carabta. maxaa ka jira wararkaasi? qodobada aad wararka ku maqli doontaan ayaa ka mid noqon doonaan. waxaa kala maqli doontaan qodobada dibadda aad ku maqli doontaan Abiy Ahmed oo fariin u diray ciidamada Itoobiya ee qabsaday dagaalankana la galay ciidamada Tigreega, wuxuuna sheegay inay cawaaqib markaa kala kulmi doonaan haddii tacaddi lagula kaco Tigreeda sida uu sheegay. dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen. qodobka ugu horeeyana wuxuu noqon doonaa Cabdirashiid Janan ayaa heshiis la galay dowladda federaalka Soomaaliya. wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa si rasmi ah heshiis ula saxiixday dowladda federaalka Soomaaliya sida markaa warbaahinta goorraweed ee heshay. Janan ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya uu heshiis la galay isagoo ah wasiirka amniga maamulka Puntland. wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland ilaa iyo 400 oo askari 36 gaari oo wato nooca dagaalka sida uu sheegay. sidoo kale wasiirkii hore maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ciidanka la socda ay la wareegayso dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna sheegay in heshiis ay wada galeen isaga oo ah Janan iyo dowladda Soomaaliya. waxa uu sheegay nambarka koowaad heshiiska dowladda federaalka la galay isagoo wasiirka amniga Jubbaland. nambar 2 inay la socdaan ciidan gaaraya 400 oo askari oo wata 36 gaadiid dagaalka ah sida uu sheegay. 3 in ciidankiisa ay la wareegayso dowladda federaalka Soomaaliya. 4 heshiiska inay ka qayb yihiin sida uu sheegay Kornaal Cabbaas iyo saraakiil kale oo gobolka Gado joogay. nambar 5 inuu siyaasadda ka bixi doonin. waxaa kale uu Janan sheegay in intaasi oo dhan uu ku saleynayo abaaraha iyo colaadaha ka taagan gobolka Gado uusan doonaynin inuu ka qayb noqdo isjijiidka siyaasadeed ee xamar ka socda. dhanka kale haddii aan fiirino qarax qasaare geystay ayaa gaari lala beegsaday oo dad shacab markaa ay saarnaayeen. ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay qarax miino oo lala eegtay bas maraya meel u dhaxaysa magaalada Mandheera ee degmada lagu magacaabo Leve, waxaana qaraxa ku dhaawacmay ugu yaraan 10 qof sida ay sheegeen booliska. baska rakaabka ayaa waxaa saarnaa 15 qof xilli miinada ay qarxaysay abaara 6 saac subaxnimo sida wararka markaa aan ku helayno. dhanka kale haddii aan fiirino Mandheera ayaa waxaa ka hadlay markaan goobjooga halkaasi ku sugnaa Ali Ibrahim Roble ayaa sheegay inay jiraan la dhaawacyo culus oo soo gaaray isla markaana loo duuliyay magaalada Nairobi sida uu sheegay oo lagu soo daweynayo. dhanka kale haddii aan fiirino gobolka Shabeellada Dhexe ayaa markaa lagula beegsaday qarax ciidamo ka tirsan ciidamada AMISOM. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika AMISOM, gaar ahaan kuwa Burundi oo qarax lagula eegtay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. qaraxaasi oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa laga hago meelaha fog ayaa waxaa ciidamada Burundi lagula eegtay deegaanka Golole ee duleedka Balcad xilli ay ku socdaalayeen halkaasi sida la sheegay. waxaana markaa sheegatay Al-Shabaab ayaa sheegtay inay qasaare markaa u geysteen iyagoo boggooda Twitterka markaa boggooda internetka ku sheegay in ciidamada markaa halkaasi dhaawacyo iyo waxyaabo kale ugu geysteen. ayna dhowr jeer markaa halkaasi kula beegsadeen qaraxyo ciidamo maraya halkaasi. wafdi uu hogaaminayo taliye Fahad Yaasiin ayaa maanta gaaray markaa Gado. waxaa markaa la sheegay in ammaanka magaalada Gado
gebi ahaanba halkaasi markaa aad loo adkeeyey sida la sheegay taliyaha niisa ayaa la sheegay inuu ku gali doono halkaasi oo ku soo dhaweyn doono wasiirkii hore ee markaa Jubbaland ninka lagu magacaabo Cabdinuur Janan Cabdirashiid Janan ayaa markaa la sheegay oo maalmahan sida la sheegay u soo gudbi doono sida la sheegay dalka Turkiga ayuuna halkaasi markaa ugu sii gudbi doonaa sida la sheegay degmada Doolow ayaa waxaa shalay dowladda ay ka dejisay diyaaradda siday gaadiidka nooca aan xabadda karin oo loo yaqaano Bullet Afroad iyagoona halkaasi u gaaray sida la sheegay kaaliyaha xafiiska taliyaha niisa sida la sheegay Cabdullaahi Kulane sida wararka markaa ay sheegayaan dhanka kale haddii aan fiirino madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya markaa xilligiisa oo dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa la sheegay in codsi uu u diray jaamacadda Carabta sida wararka markaa aan ku helayno xogayaha ururka jaamacadda Carabta ayaa waxay xaqiijiyeen in madaxweyne Farmaajo oo mar kale dhabaal u soo diray xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Axmed Abu Qayd oo ku markaa kaga codsanaya taageero shaqaale oo degdega ee xilligan xasaasi markaa ay ku jirto dowladda Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud Abuukar oo maalmahan booqasho hooleed markaa ku joogay qaahira waxa uu xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta shalay u gudbiyay fariin salaana uu ugu waday madaxweyne Farmaajo dhabaalkaasi ayaa waxaa lagu xusay in dowladda Soomaaliya ay u mahad celinayso taageerada ay dowladaha xubnaha ka ururka jaamacadda Carabta ee u fidiyaan dowladda Soomaaliya hay'adaha hoostaga iyo ummadda Soomaaliyeed fariinta madaxweyne Farmaajo oo diray xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta waxay markaa ku booriyeen in la sii kordhiyo taageerada Carabta ay siiso Soomaaliya gaar ahaan xilligan xasaasiga oo dalka markaa ku jiro kala guur si kastaba ha ahaatee dhabaalkaasi waxaas markaa la sheegay wakiil labaad oo madaxweyne Farmaajo oo u diray xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta toddobaadkii la soo dhaafay iyadoo fariinta koowaad oo wasiir dowlaha madaxtooyada ee dowladda Soomaaliya Xasan Macalin Khaliif uu u gudbiyay Abu Qayd bisha Maaj 10keedii ayaa markaa lagu yiri dhanka kale haddii aan fiirino madaxweynaha waa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in ciidamadiisa uu gudigayo in dadka Tigreega ay ciidamada hubka iska dhigay ee reer Tigre dhibaato loo geysan maadaama laga xoog badshay awoodoodna markaa la wiiqay oo sheegay haddii tacadiyo iyo kufsi waxyaabahaas oo kale lagula kaco oo sheegay inuu sharciga markaa soo taagi doono sida Abiy Ahmed oo sheegay wuxuuna sheegay in Nobel Peace oo ay ra'iisul wasaaraha sida markaa laga warqabo wuxuuna leeyahay in markaa laga ajaafeenin amba laga wasaqeerin ayuu markaa soo jeediyay maadaama aan ka awood badinay ayuu leeyahay Tigre gudaan warkii aad kala socoteen Bashiir Beejna halkaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa nabadgelyo